هنيئا آل قرآني حفظتم آية رحماني وفضلتم سيدين كحفظن كرا قرآنك كريمك سيدين كحفظن كرا قرآنك كريمك سيدين كحفظن كرا قرآنك كريمك ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر وسؤال إن بدن إسويديان ضدك جعل القرآن كريمك بل سينفتو ذكاءت كاتي لكن جوابتي إذا وامد فضد هدي الله الله كاشدو دذالنا للي مادو وإن الوقت مع القرآن ضبعه وكودي للدينية إن تكمل العصر الإفكار هنيئا قربكم ربا هنيئا marka aad qaadato go'aanka xifdinta quraanka kariimka waxa la muhuraan ah inaad hesho qof xifdisan quraanka oo ka dhageysan kara isla markaana sixi kara khaladaadka ka dhacaya waana laga wanaagsan yahay arin ay dad badan sameeyaan oo ah in laba arday ay isku dhageystaan quraanka kuwaas oo aan wax badan isdhaamin marka aad hesho macallimka ka dhageysanaya quraanka waxa muhiim ah inaad doorato qadarka aad xifdin karto waa inaadan iska badin oo aysan xamaasadu ku qaadin ogowna xifdin isku xiran haba iska yaraata ee inta la xifdinayo inay ka wanaagsan tahay xifdin badan balse aanan joogto ahayn diyaarinta casharka ka hor inta aadan ka bixin waxay leedahay muhiimad gaar ah sababtoo ah haddii aad uga baxdo casharka si wanaagsan waxay kuu noqonaysaa dhiirigelin sidaas darteed markaad xifdinayso casharka lagaa sugayo dooro goob munaasab ah oo aan lahayn wax buuq ah waxaana ugu wanaagsan masjidka gabadhana waxaa u fiican gurigeeda intaadan u imaan macalinka kaa dhagaysanaya qur'aanka kariimka idqaani oo sug xifdinta adigoo marar badan ku celcelinaya safxadda ama maqrada lagaa rabo iskuna dhagayso adigoo isku laabaya musxafka si aad u tijaabiso awooddaada samayso hal musxaf ama hal kitaab arrintaas waxay xoojinaysaa xifdintaada waxayna kuu sahlaysaa inaad suuraysato kitaabka marka ay dhacdo inaad ilowdo aayad xaraf ama shaqal muraajacada waa shay muhiim ah si aadan u iloobin suuradihii aad soo xifdisay sidaa darteed aqri maalin weliba ugu yaraan hal dus oo ka mid ah suuradihii aad ka soo gudubtay qaababka ugu wanaagsan ee muraajacadana waxaa ka mid ah waxa wanaagsan inaad isku tukato quraanka inta aad xifdisay isku day inaad soo kacdo qiyaamul leylka waxa kale oo samaysataa samiicad ama memory aad ku shubato qaariga aad ugu jeceshahay taasi waxay xoojinaysaa xifdintaada waxaana kuu saxmaya dhawaqa iyo tajwiidka si aad u sugto xifdinta quraanka kariimka waxaad ka qayb gashaa tartanada quraanka ee lagu dhiirigelinayo muslimiinta haddii aysan kuu suuragelinna waxaad samaysataa saaxiib wanaagsan oo aad ku tartantaan xifdinta quraanka haddii uu alle uu kuu sahlo xifdinta quraanka kariimka iska ilaali inaad ka hijrooto quraanka oo aad ilowdo taasi waxay ka dhigan tahay inaad dayacday nimco weyn oo uu alle ku siiyey xifdinta qur'aanka iyo ku camalfalkiisa waxay leedahay fadli iyo ajir dheeraad ah maalinta aakhir waxaa la oranayaa qofka xaafidka ah aqri qur'aanka waxay mansiladaada ku eg tahay aayadda ugu dambaysa ee aad akhriso nebigana sallallahu calayhi wasallam wuxuu sheegay in qofka maahirka ku ah qur'aanka uu maalinta qiyaamo la jiri doono malaa'igta ugu dambeyn si aad u xifdiso qur'aanka kariimka ka fogow saaxiibka xun dunuubta caajiska iyo wax walba oo kaa mashquulinaya gaarista hadafkan weyn waxaadna isku dhiirigelisaa mansilada weyn ee alle uu u diyaariyey xufaadda adigoo sidoo kale dhegaysanaya qisaska dadka xifdiyey qur'aanka kariimka iskuna day inaad xifdinta qur'aanka kariimka ku darto tafsiirkiisa
طوبى لمن حفظ الكتاب بصدره فبدا وضيئا كالنجوم تألقا وتمثل القرآن في أخلاقه.